Soomaali ha noolaato ilaahay Soomaali ha nooleeyo mudan madaxweyne adiga iyo dawladdaada soo dhaweynta adiga iyo shacabka adiga iyo dawladdaada iyo shacabka reer Qardho iyo guud ahaan shacab weynaha Puntland soo dhaweyntooda sharafta badan ee diiran waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay xaqiiqatan waa filaayay maxaa yeelay waxaan ogaa habeenkii doorashada Febraayo 8 saa soo baxdeen oo aan mar labaad idinkaga mahad celinaayo aad baad mahadsantihiin idinkoo saakayo dhan taagan ee qorraxdu kulushahay soo dhaweyntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dawlad jecel inaad tihiin dad dawladooda jecel inaad tihiin iyo ka turjumaysaa annagana waxaan ugu balana inaan jaceylkaas idiin soo gudbinno oo aan dib idinku soo celinno oo aan idin adeegno oo aan idin shaqayno hadduu ilaahi yiraahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiina sii wadaan oo aad garab istaagtaan dawladdiina oo aad taageertaan ummaddu markay isku kalsoon tahay yay horumar gaartaa insha Allah labada baraan la joogo insha Allah waa wada hadli doonaa si fiican baan idinku warrami doonaa xaaladda dalku ku jiro idinkuna waa mahadsantihiin saas ugu soo baxdeen iyo taageeradiina maalinta kulul oo qorraxda joogtaan waa mahadsantihiin walaalayaal waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato waxaan idin rajeeyay guul waxaan idin rajeeyay khayr waxaan idin rajeeyay horumar waxaan idin rajeeyay himilo wanaagsan Soomaali ha noolaato mar kale waa mahadsantihiin فرسكان وهدية أدلاد هاي أدوكو كوجو هالكن إن شاء الله بإذن الله الكريم إن أتكون حسيس شكر والله داني بنتلان شعرها مقالة الغرب يقبل كمبري إن شاء الله
aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay imaatankaaga waxaan leenahay soo dhawow waddankaagii dadkaagii aada madaxweynaha u ahayd oo soomaali oo dhinac daraf ilaa daraf raas kamboni ilaa iyo raas casayr ku taageeray ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba kugu soo dhaweynayna midnimada soomaaliya iyo wadajirkeedu adduunka oo dhan baad arkaysaan yurub oo dhan baad isu tegaysaa cid waliba waad aragtaan soomaaliya wadajirkeedu maslaxadeeda iyo danteeda ku jira waxaan jeclahay insha allahu bismillahi kariim inay noqoto soomaaliya oo qarankeedii iyo jiritaankeedii iyo sharafteedii inay insha allah fiyaalaha muuqda insha allah in la gaaro inagoo nool oo fiyo oo caafimaad qabna inaynu la kulanno sanadkan 2018 wuxuu noo noqon doonaa sanadkii sidii uu boqorku sheegay dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo ay aasaas u yihiin ama ay hogaaminayaan salaadiinta Soomaaliyeed iyo dhaqankooda ay hogaaminayaan wuxuu kaloo noqon doonaa sanadkan sanad shaqo badan oo horumar leh oo aan ka shaqeyno horumar aan ka shaqeyno horumarkaas oo ah inaan jidadkii dhisno burburay 27 sano cid walba oo saaxiibo ah oo caalamkan aan la kaashano idinkuna aad qayb ka qaadataan oo aad bixisaan canshuurihii iyo wixii ku soo aada maxaa yeelay dawlad hadda aragtaan shaqeynaysa oo ummadeedu u adeegaysa shacabkeeda bixiya kharshaadkeeda canshuuraheeda bixiya iyo kalsoonideeda siiya meel walba aan u galno waxaan u diyaarsanahay inaan sanadkan u noqdo sanadkii aan ku dhisi lahayn jidad badan oo hadda naga burbursan